والله وشنا تعبطه walaalkeygiiyow qofka mu'minka waxaa loo baahan yahay meel walba uu joogo inuu ogaado in ilaah subxaanahu wa tacaala uu u jeedo ka waran maalinta qiyaama keligaaga markaa timaadid uu ilaahay uu ku weydiiyo addoonkeygiiyow albaabka waad iska soo xirtay dadka oo dhan waad keli ayaad ka noqotay anigana miyaadan iga xishoonaynin miyaad jeclaan lahayd xilligaas inuu ku imaado malakul mowt waa maya qofku waxaa loo baahan yahay waxay tahay inuu rabbigiisa uu ka cabsado meel walba uu joodo in rabbigiisa uu u caabudo asigoo u jeedo oo kale kadib ayaa qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala noloshiisa ka dhigaya nolol wanaagsan maalinta qiyaama way hadlaysaa dhagahana way hadlaysaa waxaan oo dhan mas-uul ayay kaa noqonayaan mase ayaanan haysan isha iyo dhagaha iyo wix la mid ah ma abaalmarinta iyo mahadcelinta ilaahay subxaanahu wa tacaala in xumaad lagu daawado waa maya qofka waxaa loo baahan yahay marka in waxyaabahan oo kale uu iska joojiyo